بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada channelka Daljir Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan muuqaalkan sii share gareey channelka YouTube-kan, subscribe inoo saar page-ka Facebook-kan, sidoo kale like iyo follow isugu dar. aad baad u mahadsantahay. kusoo dhawaada warka oo kooban. golaha wadatashiga qaran oo toddobaadkiiba mar Muqdisho ku kulmaya ayaa waxaa la filayaa inay toddobaadkan mar kale kulmaan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa habeennimadii xalay ahayd waxay khadka Zoom-ka ku yeesheen shir ay kaga wada hadlayeen arrimaha doorashooyinka, waana shirkii ugu horeeyay ee yeeshaan tan iyo markii la saxiixay heshiiskii doorashooyinka ee 27kii bishii May. ila ku dhow wada hadalka mas'uuliyiintan ayaa sheegaya in ay isku raaceen in maalinta Sabtida ay soo socota shir lagu qabto magaalada Muqdisho ka oo isugu imaanayaan golaha wadatashiga qaran, gudoomiyaha gobolka Banaadir, dowlad goboleedyada iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya. shirkan ayaa la filayaa in laga dardargeliyo sidii doorashada dalka uga qabsoon lahayd, iyadoo guddiga farsamada oo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliyana uu soo hordhigi doono guddigan qorshayaasha doorashooyinka soo socda. sidoo kale waxaa la filayaa in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu magacaabo guddi dib u heshiisiinta heerka wasiir ee afarta dowlad goboleed oo markaasi laga reebay dowlad goboleedka Jubbaland, kaas oo garbaha reetigi doona si uu soo xaliyaan arrinta khilaafka gobolka Gedo. lama oga waxyaabaha ugu muhiimsan ee la iskula soo hadal qaadi doono shirkani, waxaase si gabaabsi u socday maalmihii la soo dhaafayay qorshihii lagu doonayay in dalka looga qabto doorasho. in ku dhow bil ayaa ka soo wareegatay tan iyo markii heshiiska lagu kala saxiixday magaalada Muqdisho, iyadoo tan iyo xilligaasna laga badin waayay in la bedelo guddiga farsamo iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya. lama hubo in kulankan waqtiga loo qorsheeyay uu ku qabsoomi doono iyo sidoo kale waliba in doorashada ay ku dhici doonto xilliga loo qorsheeyay. dhinaca kale, shir looga hadlayay arrimaha socdaalka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. shirkan oo 3 bilba mar la qabto ayaa lagu soo bandhigaa waxqabadka hay'adaha socdaalka iyo jinsiyadaha, waxaana ka qayb gala wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliska, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, laamaha socdaalka ee ka howlgala dowlad goboleedyada, maarayaha guud ee garoonka Aadan Cadde, ururka dhalinyarada gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale. agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Korneyl Maxamed Aadan Koofi ayaa sheegay in hay'adda socdaalka lagu qiimeeyo waxqabadka ay qabteen, isagoo bogaadiyay hawsha ay hayaan shaqaalaha hay'addaasi. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere oo loo yaqaan Caliyare ayaa ballan qaaday in maamulka gobolka Banaadir uu xoojin doono wada shaqaynta kala dhaxaysa hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa soo jeediyay in la joogteeyo shirarka noocan oo kale si xal loogu helo caqabadaha ka jira adeegyada hay'adaha ay bixiso. mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qalooco, wasiir ku-xigeenka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa bogaadiyay isbedelka ka muuqda shaqada hay'adda, wuxuuna codsaday in la dhiirigeliyo shaqaalaha ka shaqeynaya socdaalka iyo jinsiyadaha. wasiir dowlaha wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Farxaan Cali Axmed ayaa sheegay in wasaaradda ahaan ay gacan ka geysan doonaan sidii loo howlgelin lahaa ama loo dardargelin lahaaba shaqada ay hayaan laantahaasi. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Duraan Axmed Faarax ayaa dul istaagay muhiimadda ay hay'addu u leedahay dalka. tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan lama qaban shirkan oo lagu soo bandhigo waxqabadka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dalka Soomaaliya. dhinaca kale, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu dilay maalintii xalay ahayd magaalada Muqdisho. laba mas'uul oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay siyaabo kala duwan loogu dilay degmooyinka Daynile iyo Kaaraan ee magaalada Muqdisho. gudoomiyihii waaxda Kurdamaca oo ka tirsan degmada Daynile ee magaalada Muqdisho Cabdi Cabdulle Cabdi Juge ayaa markaasi fiidnimadii xalay ahayd lagu dilay gudaha degmada, halka haweeney magaceeda lagu soo koobay Suldaano oo ka tirsanayd maamulka degmada Kaaraan lagu dilay isla degmadaasi Kaaraan.
cabdulle cabdijuge ayaa waxaa rasaas ku furay rag bastoolada ku hubeysnaa oo weerar ku soo qaaday xilli uu ku fiidsanayay goob ku taala agagaarka argada laamiga Daynile sida dad goobjoogayaal ah ay warbaahinta u xaqiijiyeen. haweeneyda oo magaceeda lagu soo koobay Suldaano ayaa sidoo kale la sheegayaa inay ka tirsaneyd guddiga xalinta khilaafaadka iyo maxkamadda degmada Kaaraan. dhinaca kale madaxweyne ku xanjabay qofkii diida inuu qaato talaalka COVID-19 ama cudurka coronavirus-ka in xabsiga loo taxaabi doono. madaxweynaha dalka Philippines Rodrigo Duterte ayaa ku hanjabay inuu xabsiga gelin doono qofkii diida inuu qaato talaalka cudurka coronavirus-ka. dalka Philippines ayaa waxaa laga bilaabay barnaamijka talaalka bishii Maarso in ka soo gudubnay, laakiin waxaa jira warbixino sheegaya in dadka ku soo xaadiray ay aad u yar yihiin ismarkaasina tirada qaadatay ay hooseyso. waad dooran kartaa buu yiri inaad qaadato talaalka ama xabsiga ayaan kuu diri doonaa sida adiga kala dooro. sidoo kale Duterte ayaa waxa uu sheegay in kuwa diidaya in la talaalo ay tahay oo kaliya in dalka ka baxaan ama ay aadaan Hindiya amaba sidoo kale Mareykanka. qiyaasta dadka ku nool dalka Philippines oo ah 110 milyan ayaa waxaa qaadatay oo kaliya talaalkaasi 1 milyan iyo 1.95% sida lagu sheegay warbixin markaasi gaar ah oo ay dowladda soo saartay habeennimadii Isniinta aynu ka soo gudubnay. 8.4 milyan oo talaal ayaa la qaatay, ugu yaraan 6.2 milyan oo qof ayaana helay qiyaasta ugu horeysa, halka 2.15 milyan ay markaasi buuxda u talaalayeen ay u talaalan yihiin. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Philippines ayaa waday dadaalo ay ku dhiirigelinayaan muwaadiniinta in ay helaan talaalka coronavirus-ka iyagoo ka furay goobaha talaalka ee markaasi kaniisadaha, suuqyada iyo sidoo kale goobaha la isugu yimaado si dadku ay u qaataan talaalkaasi. guud ahaanba caalamka ayaa waxaa laga wada qaadanaya xilligan talaalka looga hortagayo cudurka coronavirus-ka, waxaana jira dowlado iyagu horeyba ugu dhawaaqay inay qasab tahay qaadashada talaalkaasi. dalka Mareykanka tusaale ahaan ayaa iyagu waxa ay muwaadiniintiisu wada qaateen intooda badan talaalka cudurka coronavirus-ka, waxaana madaxweynaha dalkaasi uu sheegay in haddii uu qofku qaato labada qaybood ee talaalkaasi uusan u baahnayn xirashada afmeerka ama waxa loo yaqaano face maskiga. inta ayaan kusoo afmeerinaa wararkii maanta, tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo, nabadin nolol kalante iyo amaan Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.